iyagii baan garanayn laftoodii meel ay marayaan wadinka maqlaya maalin walba waxaa ka soo yeedhaya waxaan dhagahaagu qaban karayn oo dadnimadaadu ogolaan karayn oo diintaadu aanay ku ogolaanayn baa maalin walba laga soo sheegaya magaalada Hargeysa iyo dawladdeedii iyo baarlamaankeedii so disgusting ilaahi ya rasuul wadinka maqlay waanaad akhrisateen baan u malaynayaa sharciyada cusub ay soo rogeen ay ansixiyeen sharcigan waxaa miiska hoostiisa u yiilay baa layidhi ilaa iyo 2012 miyaa layidhi marka intaaba way la baqayeen laakiin raalli bay ka ahaayeen aakhirkii waxayna warxinaya aynu yeelanno aynu ku dhacno inaynu ansixinno wadinka arkay sharcigu waxa weeye wuxuu caddaynayaa qolada layidhaha LGBT waa lesbian gay transvestite iyo maxaa la yidhaha qolada kale maxay ahayd transgender iyo kuwa queerka la yidhaahdo ilaahay idin abuurtay baan idinku dhaarshay islaamnimo haddaba dadkii waxaa xalaaleeyey intee bay u jiraan waxaan idinkula hadlayaa been maaha waa waxaad wada dhegaysateen waa waxaad wada akhrisateen waa waxa hadda laga doodayo hadda ugu dambaysay waxaan soo dhigay sheekh dirir oo ka doodayo oo ka qaylinayo laa ilaaha illa allah dahaya culimo ka horreysay waad maqlayseen xildhibaanada qaarkood diiday inay ansixiyaan waa laga batay oo le war sidan waa gaalnimaha laga daayo waad aragteen shalay bay ahayd oo may fogeen markay kiniisadda keeneen ee Hargeysa laga dhex furay kiniisadda laga dhex furay dhibka jira haddaba waxa weeye waxaad mooddaa niyo Soomaaliya inay noqotay berigii hore ma garanaysaa intaan dumarku wax baran ee ay ku jireen under the care of a man oo ninku uu ahaan jiray breadwinner ama af Soomaali aan ku hadlo ninku mas'uul waa dumarka ka ahaan jiray oo arsaaqadeeda iyo biilkeeda iyo wixii oo dhan isagu u qaabilsanaan jiray iyadoo ay guri joog ahayd marka waa naag dee loo taliyo hadday edab darro keento biilka ayaa lagu cadaadin jirayo ma garanaysaa oo ninku wax ka goyn jirayo ma garanaysaa waxyaaba caynkaas ah hadda Soomaaliya oo dhan anigoon qoladan gaar u maagayn ayaa waxay noqonay dad biil ka qaata marka waxay gaadhay in hadda laynagu khasbo wixii ay doonayeen iyo dhaqankoodii dibadaha markaa timaado dhulka gaalada bay waxay ku odhanayaan you need to integrate or assimilate inaad nagu dhex milanto ood ka timaado wixii aad aaminsanayd baa danta ku jirta waa lagugu khasbayaa iskuulladoodaa lagugu dhigayaa shaqadoodaa lagaa rabaa suuqa markaad socialize garaynayso waa khasab weeye inaad sidoodii ma garanaysa waxyaabo badan oo aad tidatay aad ka tagto dee markaa maxay noo hadhay marka waddankeennii innagoo dhex joognaa diinteennii iyo dadnimadeennii lagu bedelayo allaan idinku dhaarshay ma dad xoraynu nahay ma dad xor ayaynu nahay waa idinka arkay qabiiladu way isdilaan dhulbahantuha ugu sii batee laba jilib baa islaynayaa ninbaa wax laynaya ama ninba wax laynaya waa la qabanayaa la marin maayo ciqaabtii islaamiga ahaa ee diintu qortay qisaaska ahayd ninkii inta la qabtaa lala baxsanaya Hargeysa la geenaya ama meesha la Madheera gaalaa joogto subax walba jeelasha tagta oo soo eegta jeelasha ninkii la doonayay in la dilo waxay odhan sharciga iyagu ma ogola ma dilaysaan ninkan xidha haydin xidhnaada laakiin dili maysaan oo reerkii uu ka yimid maxaanu ka yeelnaa we don't care about them dan iyo muraad kama lihin idinku la tacaala reeraha waa waxa had iyo goor aanad u socoto hadda rag badan oo dhulbahanto oo naga xidhnaa oo rag laayay ayaanu Somaliland ugu tagnay ka ugu sarreeyay la ka ugu hoosay silaanyoodii iyo kan jooga iyo oo aanu wareeray kala degi maayana nasiin ninka wax dilay aanu qisaasna si reeray u kala bogsadaano ay halka ku dhamaato ma inaad reenduma siin karno dee gaaladu nooma ogola hadda wallaahi oo bilaahi tallahi markaan idin sheegay inaanay beenahay nooma ogola dee wadinka arka halkay marayso halka ay marayso wadinka arka hadalkan iyo baaqan si gaar ah waxaan ugu dirayaa beelaha Somaliland degay aan reer Sheekh Saxaaq ahayn iyagu waa reer kala go'aan maaha hadday khalad arkaan khaladka isku raacayaan hadday saxarkaan waa codba say doonaan bay iyagu yeelaan marka iyaga waxba uma sheegi karo waayo dee igama rabaan inaan wax u sheego laakiin waxaan la hadlayaa beelaha kale aan u dhalan reer Sheekh Saxaaq waxa soo socdaa ka badan waxaa fooday nagu soo haya
baaballankii ilaahay ka badan waxaan maanta aynu ka hadlayno midhkaa meel ku qorto midhkaa isagaa meel ku qorto weliba gaar ahaan waxaanu la hadlayaa beesha dhulbahante war dhulbahantow war waxaad u dagaalami jirtay diinta islaamka iyo shicaar alislaam iyo laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah war daraawiishtii iyagoo shallaad akhriyaya ayay geli jireen dagaalka war waxay la dagaalamayeen gaalka innaga colaad gaar oo inoo dhexaysay ma jirto aanay soomaalida kala qabineen waxa weeye waynu ka feejignayn oo waxaynu la war yaan la fidmayn ummaddan oo diintooda xaniifka ayaan laga saarin ayaynu dhiigga u daadinay oo awowayaasheen u dhinteen iyagoo kumanyaala tarab the reasonka ay u dagaalamayeen waxayd war ninkan caddaanka oo isma nihin isma naqaano waxba isuma nihin isuma ekin diinta aad wada falaysa diini عيسى بدينه وموسى بدينه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه آمن سنة أذكر جيسس كرايس يوحنا قرن البضوضة أذكر إسكما قسم كرنا إسكما نلب مكرنا أذكر هل كان نجستك وحكي لا يدق لما ينمشت وحن أنت هذين رعية قولوا البانتو وحن دون يا بلابو كان بين مقدو عن كجسوا قاضي إنه ما كان إنجليز كه دجالك واحد ربع أنتي إنه قرنا يستي أنت تاريخ دي دراوشتي نجقدم تمشي يدجال دي أردن هيسا بليز aynu isgargaarsanno magdhow weyn baynu ka helaynaa dad baa inooga horreeyey waa u suura gashay teennu ma laha bugaagtii buu hayaa iyaga way wada qoran yihin waynu ka daba tegaynaa nijaaska nijaas ku dhalay